dowladda Kenya oo lagu eedeeyay inay kaashato qaar ka mid ah ganacsatada xaafadda Islii ayna shaaciso tiro aan sax ahayn laga helo dadka qaba cudurka coronavirus ee xaafadda Islii. Cabdiraxmaan Khaliif ayaa ka waramay. iyadoo ay tirada dadka qabo cudurka coronavirus ee xaafadda Soomaalida Islii ay maalin walba kor u sii kacayso, haddana qaar ka mid ah shacabka xaafadan ayaa aaminsan in tiradaasi ay tahay mid runta ka fog. Cabdicasiis Koofiyad Guduud oo ahaa musharax baarlamaaneed ee xaafadan ayaa sheegay in dowladda ay tiro sax ahayn ay maalin walba sheegto in ay qabaan xanuunkan caalamka ka yaabsaday. Mar uu la hadlay barnaamijka hargalka ee TV-ga RTN, Cabdicasiis ayaa ka dhawaajiyay in Soomaalida la rabo in lacag laga sameeyo, taasoo keentay in dowladda ay maalin walba kor ay u qaado tirada dadka qabo cudurkan ee xaafadan. Qof kastoo laga helo cudurkan waxaa la geeyaa xarun lagu karantiilayo, halkaasoo lagu qasbo in maalin walba uu bixiyo 2,000 oo shilinka Kenya muddo 14 maalin ah. Cabdicasiis ayaa aaminsan in xanuunkan uu hadda u noqday ganacsi dowladda dalkan, halkaasoo ay lacago fara badan ka dheefto. Wuxuu sheegay in Soomaalida ay ka mid yihiin dadka kali ah oo iska bixin karo lacagahaasi, taasoo keentay in dowladda ay shacab fara badan ay Soomaaliyeed ay ku sheegto in ay qabaan cudurkani. waxaa laga sheegayaa oo la xaqiijiyay in qofka markii la qabto oo cudurka waa laga helo la yiraahdo in lagu qasbaayo quarantine waa asaga kharashkiisa baxsanayo. hadda waliba waxaan cabsi ka qabaa dad manaxayaal ah oo aan bulshada u naxaynin oo danahooda gaarka kaliya ka shaqeynayo hab u bandnaadeen ganacsatada inay dawladda qandaraas ka soo qaataan oo yiraahdaan dadkii inaan karantiinaan rabnaayo xarumaha lagu karantiilay gacanta noo galiya oo deal noocaas oo kale xaafadda laga dhaxelo. cabsi noocaasan qabaa lagana yaabo inay soo socoto. wallaahi culays inteeda la eg waaye. dawladdan ayadaa laga rabay qofkii cudurka ay ka hesho inay damaanadiisa qaado dhowrka maalmood ay hayso 14 maalin iyo ka badanba intay rabto ha haysato, laakiin daawadiisa jiifkiisa iyo cunadiisa inay ayada damaanad qaado mas'uuliyad ayada saarneyd. sababta dadkan dad waxaa weeye canshuur bixiyayaal weeye oo dalka xaq ku leh oo citizens ah. arrintaas walwal iyo walaac bay igu haysaa aniga Cabdicasiis ahaan. cudurka xaafadda horta inuu ku faafayo inuusan ku faafayn ba su'aal ka taagan tahay. waxaan ma iska PR show miya ma propaganda nooc bicmushtar oo dadka jeebkooda lagu baaranayo miya mise waa wax jiro rasmi ah oo cudurradaas kiisaska la helo rasmi. sababtoo waxaan maqlaynay madaxweynaha Pombe Magufuli ee Tanzania inuu sheegay makiinadaha cudurka lagu baaro wadankiisa yaallo in ay kiisaska positive ay soo saaraan aad u badan yihiin, markaasna uu u kurgalay uu baaritaan hoose oo la ogeyn uu sameeyay oo dhacaan ari iyo dhacaan babaay iyo dhacaan khudaar kale iyo dhacaan xoolo kale uu laboratory-ga geeyey oo magacyo bini aadan u bixiyey oo magacyo muslimiin iyo kuwa gaalaba uu bixiyey. 90% ay soo saareen natiijada inay tahay positive oo dadka cudurka natiijooyinka la soo saaray inay yihiin cudurka inuu wadanka yaalo. marka wixii Magufuli si daacadnimo uga hadlay waa nin integrity leadership leh. annaga kumaana baranin waddankanagaan integrity leadership. dad muxuu ahaa ka ganacsado runtii shacabka tamartooda iyo fursadaha shacabka dad ka ganacsado adeeg u adeegaan iska dhaaf ayaan ku barannay. marka aniga waxaan qabaa oo aan aad u ayidayaa buunbuunin inaysan ka badneen cudurrada ku soo badanaya xaafadda Islii. cudurka cudur jiro laakiin buunbuuninta farada badan waxay u muuqataa Soomaalida inay noqdeen kaliya dadka iska bixin karo lacagta quarantine-ka lagu qasbayo. marka dawladda inay qayb kale oo revenue ay ka sameeyso fursad kale oo revenue Soomaalida uga sameeyso. waxaan xasuusanaa waagi dadka la tarxiilayay ama guryaha lagu jabinayay oo muxuu ahaa wadankooda lagu celinaya lahaa in lacag fara badan laga sameeyay dadkii oo aad loo kala gatay dadkii.
taas hadda wax aan ka duwanayn baa islii ka socdo ummadda muslimiinta ummadda soomaalida reer islii allah u gargaaro islii ayaa waxaa la aaminsan yahay in dhowaan laga furi doono xarun lagu karantiili doono dadka uu xanuunkan ku dhaco. cabdiraxmaan khaliif, RTN, islii, Nairobi.